waxa ilaahay agtiisa wax ka ahi waa maxay ilaahay wuxuu eegaa ilaa quluubikum wa acmaalikum waxa quluubtiinna ku jira iyo acmaashiina sida daraaddeed buu xadiidkii nebigu wuxuu lahaa attaqwa haahuna attaqwa haahuna attaqwa haahuna intuu laabtiisa tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam 3 jeer ayuu wuxuu yidhi alla ka cabsigu halkuu ku jira alla ka cabsigu halkuu ku jira idan qalbiga iyo caafimaad qabkiisa ama bukaankiisa ama dhimashadiisu waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu qofka muslimkii u baahan yahay inuu in badan eego war ma kuwa qalbigoodu dhintaad ka mid tahay mise kuwa bukaabaad ka mid tahay mise kuwa caafimaad qaba waa 3 darajo oo kala durugsan caafimaad qabka qalbiga waxaa ku xidhan صلاح أما وناقة الدنيا آخرة فساد وقلبه فسادنا وحا كحرا آخرية الدون بفساد كده وهي قلبك وحيابها فسادية قال لما كمده الرياء السمعية استصبع كمده ما هنقول هذا يسمع قشيسبع كمده كبر يسل ويني بكمده عجب بك وحيابها بلشد الديدة بين بلشان نقطة وأمراض القلوب bulshadu hadday ka caafimaad qabto qalbiga waa bulsho nadiifa waa mujtamac jiri kara nolosha caadiga adduunyo haddaanu se quluubta ka caafimaad qabin waa bulsho cafina waa bulsho aan jiri karin quluubta waa bukoota waxaana bukaysiiya gaalnimada iyo kufriga waxaa bukaysiiya macaasida waxaa bukaysiiya siday dunuubta qalbiga degtaa u kala waaweyntii ومثلا احنا وباهنا اعمال القلوب كلا تلمامه وحنا وحلو نولي قلبك الهي ذكريس هي حسكيس قرانك اخرسكيس اوراد الله يمات كوده صلاه هي عبادات هي واجبات لو فري سمينتوده وحاسي قلبك نولي وحنا ولا صافيه على قلبك او هريو الرياضه هي السمعه رياض وعمل قلبية حديث النبي واحد المام صدقك النار طب الله وجهر شدة يا أهل التوحيد كأني كواسيين صدح دي النار توجه الري أول من تصعر بهم النار بالنبي صدح توجه الري النار تلوج شدة وصدح قلبك كبك قاضي حي سمايين أعمال صالحة لكن قصدك إرادة عدة أعمال صالحة وحكي قربين ما غلطان طيب oo waa maxay waxa uu nabigu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam ka ugu horeeya naarta lagu shidaa waa mid sheekh ahaa oo quraan akhris badnaa oo waday dabeetana waxa la yiraahdaa wixii lagu baray macaaha maxaad ku samaysay ilaahu waan akhriyay buu yiraahdaa habeeniyana al-layl wa atraf an-nahar baan quraanka akhrinay waxa la yiraahdaa waxaad u akhrinaysay in lagu yiraahdo hebel waa caalim iyo waa qaari iyo waa nin wax yaqaana deyntiina waa tii lagu yiri dadku kugu yiraahdo hebel waa nin cod macaaniyo waa sheekh iyo waa wadaad aan laga daba dhufanayo intaana hore lagu yiri خلاص عند الله waxba kaama xigaan baa la leeyahay markaa naarta galba la yiraahdaa intaas aad walba doonaysa intiina heshay mid baa yimaada yiraahdo waan jihaad ilaahu dartaaban u dagaalamay waa kan waxa la yiraahdaa waxaad rabtay in lagu yiraahdo hebel waa geesi iyo xagu ka xigan nin baa ka xiga iyo dhankiisa laga ka soo dhici maayo intaas aad rabtay intiina waa lagu yiri baa rabbi yiraahdaa aadna naarta gal mid wax bixiyayna isna waxa la yiraahdaa waxaad rabtay in lagu yiraahdo hebel waa nin faxal oo gacan furan deyntiina lagu yiri isna naarta gal idan waa acmaal alqulub waxa amalka kaaga dhiga wax qiimo leh hadduu amalka qalbigu xumaado oo ama riyaa galo ismaqashiin ama uu galo iscajabin iyo isafuufid iyo hal lagu sheego iyo miyaanan hebel ahayn aad duddo hadday dadku magacaaga hore u sheegi waayaan iyana waa la midoon waxba waa hal bacaad lagu lisaday Soomaalidu sheegaysa waa aana cid la ku dhacay قلوبته محن نظيفية عافمادية إلهي كتاب كيسو ينوغو شيغو وحلين قد جاءتكم موعظة من ربكم
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين حق الرب وحيدين كتمي با إلهي لي موعد وانو إيا وشفاء لما في الصدور لابت وحيكو عافماده لابت محل لغا عافمادينيا wax laga caafimaadinaya aljahl iyo wuxuu dabada ku wato oo shirki iyo gaalnimo iyo wixii la mid ah waxa laga caafimaadinaya shahwaatu nafsi iyo wixii la mid ah waxa laga caafimaadinaya shubuhaat wa shukuk waxa laga caafimaadinaya shahwaatu nafs waxa soo dhan waxa nadiifiye ee maydha ilaahay wuxuu leeyahay wa shifaa'un lima fi sudur laabtu caafimaad u yahay nolosha dhan buu caafimaad u yahay laakiin waxa la inoo tilmaamayaa laabe hadday caafimaado nolosha inta kalena inay caafimaadi doonto وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم إلهي وحينه tilmaamaya qulubtu inay caafimaado in xumaha laga saari karo waxa ka saare caafimaadiyana inuu yahay rabbi subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa waxaynu u baahannahay inaynu dib qulubteena u fatashino qulubteena inaynu dib u fatashino baadhno oo aynu nadiifino daahir yeelno ka daahir yeelna xaasidnimo iyo xaqdi iyo xumaan iyo xan iyo wixii la mid oo dhan ka daahir yeelno ka daahir yeelno waxa laaliya waxa mubtilaatul a'maal waxa amalka buriya adigoo shaqaynaya haddana inay shaqadaadu wax ka soo qaad yeelan weydo adoo salaad tukanay salaadaadu nafci yeelan weydo waa mid subxaanallah marka ayuha alahibba waxaynu leenahay quluubtu waa meel u baahan in ihtimaam gaar la siiyo oo aad xisaabtanto oo aad tidhaahdo qalbigaagu intay xaasidnimo ku jirtaa intay qilli ku jirtaa intay colaad ku jirtaa intuu nadiif yahay intuu daahir yahay intuu rabbiga weynaynaysa oo aan wax kale oo dhibi ku jirin kaasaynu u baahanay inaynu samayno sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin